kulan wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaalkan oo aan uga hadlayno sheekada gabar Mareykan ah oo loo tababaray sidii ay diinta Islaamka ugu ciyaari lahayd dadka aan muslimka ahayna ugu bandhigi lahayd xumaan iyadoo oo iska dhigaysa Islaam balse Allah subhanahu wa ta'ala wadadaas uga dhigay midii hanuunka fadlan inta aanan gudagelin sheekada gabadhan haddii aad kanaalka ama page-ka ku cusub tahay nagu soo biir si aad u hesho sheekooyinka sidan oo kale ah gabar Mareykan ah ayaa loo shaqaleysiyay sidii ay wax uga sheegi lahayd diinta Islaamka dadka Islaamka ahna ka bixin lahayd sawir xun oo u muuqda inay yihiin dad liita waxa sheekadan ka waramaya Sharifa Carlo oo ah gabadha loo shaqaleysiyay Sumcad Dilka diinta Islaamka waxay tiri Sharifa Carlo aad ayaan ugu faraxsanahay in aan dadka hortooda ka sheego wax ku saabsan xaaladeyda waliba si toos ah waxaan ahay gabar Mareykan caadi ah waxaana ka tirsanaa ciidamada Mareykanka darajadeydu waxay ahayd gaashaanle aabahayna wuxuu ahaa taliye ka tirsan ciidamada Mareykanka waxaan xiisayn jiray ay leedahay madadaalada iyo inaan saaxiibadeyda waqti la qaato maalin ayaa waxa ii yimid koox dad ah oo aan qaarkood garanayo waxay ii sheegeen in ay doonayaan inaan aado jaamacad si aan u barto Qur'aanka Kariimka iyo Axaadiista si marka aan barto kadib aan ugu ciyaaro oo aan Islaamka u soo radxumayo waxay qorsheeyeen in aan tago safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay Masar marka aan qalin jabiyo wuxuu qorshuhu ahaa inaan bilaabo barashada xiriirka caalamiga ah iyo qaanuunka kadibna aan la shaqo bilaabo safaaradda waxayna kooxdan leeyihiin dad u jooga meel walba oo adduunka ah waxay doonayeen in aan ka shaqeeyo xuquuqda haweenka taasoo ah asal ahaan haweenka in laga fogeeyo diinta Islaamka In order to learn about Islam to destroy it, I had to learn what the real Islam was. I sat with a group of scholars who were primarily Jewish, and they taught me Quran, they taught me Hadith, and they taught me how to play with the Quran and the Hadith to try to take women away from Islam. waxay kooxdan isku dayeen in ay dumiyaan qoysas badan oo muslimiin ah iyadoo loo marayo haweenka qorshahooda waan jeclaystay waxaan u haystay in gabdhaha muslimiinta ah la dulmiyay waxaan u maleynayay haweeneyda muslimada ah inaysan lahayn wax xuquuq ah waad ogtahay haweeneyda muslimka ahi way asturan tahay madax ilaa cirib Sharifa Carlo waxay leedahay haweenka qaar ee muslimiinta ah waxa loo sameeyay saaxiibo aan muslim ahayn si ninkeeda uu uga caroodo kadibna ay banaanka ugu soo dhacdo qorshuhu wuxuu ahaa in diinta Islaamka dadka kale aan muslimiinta ahayn ay ka qaataan sawir xun si aan u burburiyo diinta Islaamka waxay ahayd inaan barto sida loogu ciyaaro Qur'aanka waxaan la fariistay koox aqoon-yahano Yuhuud ah waxayna i bareen Qur'aanka waxay i bari jireen hilibka looda sida loo cuno waxay sidoo kale i bareen sida loogu ciyaaro Qur'aanka Kariimka iyo Axaadiista iyo inaan isku dayo inaan dumarka tashkiiliyo hawshu waxay ahayd in duulaan lagu qaado diinta Islaamka iyadoo oo la adeegsanayo xuquuqda haweenka marka aad baranayso diinta Islaamka qalbigaagana aad ku hayso ujeedo gaar ah oo ah inaad dhibaatayso diinta Islaamka balse runtii ayaa timid hadda xaalku wuu isbedelay waxaana Sharifa Carlo ku beermay qalbigeeda jacayl ay u qabto Qur'aanka waxay tiri Qur'aanka waan jeclaaday jacayl aan u qaaday Qur'aanka Kariimka ah waxaan ku jeclaaday Islaamka ma aanan doonayn bay tiri inaan muslim noqdo maxaa yeelay Islaamku uma muuqan wax fudud ama igu fiican haddii aan muslimo waan ogaa inaan waayi doono wixii aan haystay oo dhan diblomaasi ma noqon doono lacag ma haysto oo reerkayga ayaan waayay Sharifa waxay hore u soo baratay diimo badan oo ay ka mid tahay diinta Masiixiga iyo Buddhistaha iyo kuwa kale balse waxay sheegtay inay ogaatay in diinta saxda ay tahay Islaamka Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan kadib 3 sano oo si xil dheer ay Sharifa Carlo u baranaysay diinta Islaamka wuxuu alla ku hogaamiyay in ay qaadato diinta Islaamka waxayna noqotay qof muslim ah natiijada ka soo baxday dhagartii ay damacsaneed waxay noqotay inay noqoto qof muslim ah waxa la weydiiyay Sharifa Carlo ma jirtaa qof ama urur ku caawiyay kadib markii aad muslimka noqotay kadib markaan muslimay alxamdulillah dadkii masjidka ku sugnaa waxay u yimaadeen sidii ay ii nidaamin lahaayeen waxay ugu caawiyeen kutub ku saabsan macluumaadka Islaamka cashiro ayay siinayeen waxa jirtay walaal reer Marocco ah Sahra ayaa la yiraahdaa aad ay u fiicneed waxay ahayd qof fiican waxay ii noqotay sidii walaashay oo kale waxa jiray reer Masaari ah way ila shaqeeyeen qof walbana wuxuu isku dayay inuu iga caawiyo barashada diinteyda si aan u barto diinta Islaamka inkastoo aanan cidna u sheegin waqtigaas qoyskaygu way i diideen lacagna ma aanan haysan
waad ogtahay waxaan lumiyay deeqdii waxbarashada dabcan shariifa Carlo waxay leedahay dhowrkii maalmoodba waxaan lacag ka heli jiray sanduuqa boostadayda waan ogaa in ay bulshada muslimiintu ay caawinayaan waxaan haystay caawimaad badan waana jeclahay sida ay muslimiintu iigu yimaadeen oo ay ii siiyeen walaaltinimo dhab ah shariifa Carlo waxay raadin jirtay intii aysan muslimka noqon wax nolosheeda ku siyaadiya xasilooni iyo farxad waxay sheegtay in midaasi aysan horay u helin ku soo biirideedii islaamka ka hor waxaan samayn jiray ay leedahay shariifo jimicsi iyo wax la mid ah ka hor islaamka si aan ugu helo xoogaa firfircooni ah laakiin hadda alxamdulillah waxaan dareemayaa farxad wax walba way isbedeleen noloshayduna way isbedeshay waana iska daayay raadinta wixii hore maxaa yeelay waxaan helay wixii aan raadinayay waxaan aaminsanahay in ay tani tahay noloshayda dhabta ah waxa gudaha ku jira alla ayaa og waana ka maqnaa noloshan ugu dambeyntii waxaan helay jacayl dhab ah iyo kalsooni shariifa Carlo waxa la weydiiyay maxaad kula talinaysaa dadka aan muslimka ahayn ee baaraya ama isku dayaya inay wax ka bartaan diinta islaamka shariifa Carlo waxay leedahay waxaan kula talinayaa uma baahnid in aad meelo kale ka raadiso wax ku saabsan islaamka internetka ka eeg waxa ku saabsan islaamka ama aqri kutubta laga qoray markaas ayaad ogaanaysaa in aan qofna been aysan ku sheegi karin learn about Islam from the source read the Quran read the statements of the prophet and learn the way that Muslims learn if you do this then you're going to know the true Islam not what the media says not what people say not what the haters say you'll learn what Muslims really truly believe and I think that's the best way to learn anything fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalka fariin ku soo dhawow subscribe saar muuqaalkanna si share garee si dad badan uu gaaro page-kana like saar waad mahadsantihiin nabadgelyo